بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه أهلا وسهلا ومرحبا بكم waxaan soo gaaray gabagabadii dowladii socotay 14 معهد البشائر California Group of Schools waxaan ku soo jirnay oo soo qaadanay duruus kala duwan culimo kala duwan alxamdulillah maanta waxaan soo gaaray fadhiga ugu dambeeyay oo noqon doona fatawa sharciya ah oo uu ka jawaabi doono insha Allah taala su'aalaha aad soo diyaariseen aad soo qorteen Sheikh Maxamuud Shible culimada waaweyn ee Soomaaliya geyga Soomaaliya laga yaqaano marka sheekhan soo dhaweyna insha Allah taala waqtigan oo kasbanayno ayaan insha Allah taala aan ka faa'iideysan doono insha Allah taala haddii jiraan su'aalo aan ilaahay hadana soo gaarin waxaan rajaynaynaa in nala soo gaarsiiyo insha Allah taala su'aalahaas waxaan ku bilaabaynaa su'aalaha dabcan su'aaluhu way badan yihiin wayna isu eegyihiin runtii oo waxaa dhici karta su'aal qof soo qoray inuu qof kale la soo qoray marka wixii isu eg hal mar ayaa laga jawaabay insha Allah taala gabadhan waxay leedahay sheekh ninkaygu xaas kale ayuu leeyahay isaga oo hal sano maqan ayuu mar kasta u imaanaya wuxuu soo kaxaysanayaa carruurtii xaaska kale marka mar waxaan weydiisaa bay leedahay inuu arrintaa joojiyo waanan ku kari lahay ugu dambayn ma ka dalban karaa inaan kala tagno su'aasha labaad waxay leedahay katiinad xarigeed ayaan waddo ka helay qiyaas ahaan 3 garaam waxaan isticmaalay xilli horena way ahayd qaabkee ayaan ugu habboon ayaan isaga bixini karaa su'aasha saddexaad waxay leedahay sheekh adoo haweenay ah waddanka dibaddiisu ma u bixi kartaa adoo muxram la'aan ah arrimo shaqo ku saabsan awgeed شنشن ما كرينا إن شاء الله تعالى السؤال شافراد وحيلاد هاي السلام عليكم شيخ سؤال شيء وحي تهاي نين أيان كلا تغني هل عنق أيانو هيا فمل أيان هذا نقضي بيلك ويسو ديرو أو عنق يسو ديرو وحبا كسو هرا لعق ديري marmarna lacag kale ayuu soo diraa marka lacagaha dheeriga ma xalaal baa haddaan isticmaalo su'aasha kale waxay leedahay sheekh waxaan ahay gabar carmal ah ama garoob ah inaan guursado ayaan rabaa aabbahay wuu xanuunsan yahay walaalkay wilaayada uma dhiban karaa marxaba sheekh sheekhan ku wareejin naas maxaa loo dhageysan insha Allah taala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى سبحانه وتعالى خيرك الله ينوافجيه خاتمنا الله ينوصو بيه إلهي معدي سكدب ولا الله سوق بنقابيه كلان كان مناسبتنا نوصو كان خير الله كسيه intii isugu timidna ilaahay wax khayr iyo liibaan allaha kala kulmiyo su'aalahani
waxaan filayaa badankood ama saddex ka midihii waa su'aalo qoys, labana waa su'aalo maal iyo wixii la xiriira ku saabsan. gabadha koowaad ee ninkeedu meel kale ku maqan yahay, reer kalena leeyahay, markii uu muddo maqnaado isagoo reerkii iyo carruurtii iyo talla imanayo ee tiri sidaa furiin ma dalban karaa. markii horta arrimo dad gaara khuseeya yihiin, xukunka ka dhalanaya labada dhinacba uu saamayn doono, waxaa wax saxa la ogaan karaa markii labada dhinacba la waraysto. sida ay gabadhu u sheegtay ma u tahay mise sidaa waxbaa ka beddelan. markaasaa horta labadiinna si dhaba xukunka loo ogaan karaa. si kastoo qofku dhibbana isugu sheego, dhab yar saxna waa noqon kartaa, inuusan ahaynna waa noqon kartaa markay qadiyad ama qoys ama dhaqaale ama dhiigoo dad ka dhexaysata. qur-aanka waa taqaanaan fii suurati saad, nebiyullaahi daawuud calayhi salaam, laba nin baa u timid oo nin baa aada u calaacalay. ina haadaa akhii lahu 99 nacja. wuxuu leeyay ninkan walaalkeen is haysannaa, hal neef oo adhi aan isku haysannaa, halkaasaan xoolo ka leeyahay. isna 99 neef oo adhi uu leeyahay. halkaygiibuu damac ka galay inuu iga qaato. aniga halkii neefan xoolo ka lahaa iyo wuxuu leeyahay neef waxba kuu tari maayo, anigana tira iga kala dhimane ani isii, anigana halkaa neefan xoolo ka leeyahay. nebi daawuud wuxuu yihi uu kaa gardaran yahay. ilaahayna wuxuu u sheegay nebi daawuud inuu khaldan yahay oo yahayd ninka kale inuu dhegaysto. nabiyullaahi yacquub carruurtiisii markay yuusuf godka ku soo rideen, wajaa'uu abaahum cishaa'an yabkuun, iyagoo ooyayay yimaadeen, iska ooyeysiinaya. iyagana hadda wiil meel ceela ku soo riday oo kadib soo iibsadayoo dembigii sameeyey baa iyagoo ooyaya yimid. soomaaliduna waxay yidhaahdaan hadduu qof ishu ka lalmato oo nabar kaga dhacay oo isha laga soo riday kuu yimaado oo kuu sheegto, hubso kii kale waxaa laga yaabaa intuu caloosha kala gooyo inuu soo kicilaya, isagaaba il lugihii ku socda weliye kul calooshu kala go-an tahay inuu ka yimid. dacwadaha aan qaadno wax badan baa ka soo baxa. mabda' guud baan su-aasha uga jawaabi karaa ee labadan qof ee kayska gaarkaa ka dhaxeeyo in dhinacii kale la dhagaystaa lagu ogaan karaa. qofku tasiisu sheegtaa, qof kalena mid kaleu sheegtaa, waxaana soo marta waxay u baahan tahay dhowr dhinacba in la ogaado. marka koowaad, marka hore isguursanayseen arrintan ma ka heshiiseen oo ma ka wada hadasheen? ma dhici kartaa inaad ku heshiiseen in sidaaba uu yeeli karo oo adigu shalay ogolaato oo saa reerkaba ugu soo biirtay? ma dhici kartaa? adigu waa laga yaabaa inaynan ahayn, laakiin meelo kale ay ka dhici kartaa. waxaa dhici karta ninka hadhow inuu ku doodo sidan baan ku heshiinay, heshiis baan ku hayna iyadaa isbeddeshay. si aan waxyaabaha u imanin way mabda'a guud, ninku hadduu laba reera leeyahay inuu cadaalad u sameeyaa lagu leeyahay. cadaaladdu mar waxay noqotaa dhaqaalaha nololeed ama deegaan guri ah ama dadku waxay biil u baahan yihiin ama dawadooda. waa laga yaabaa inuu kharashku kala bato, reer hal ilmo haysta iyo reer 10 ilmood haysta isku guri uma baahna, guryihiina isku kharash maaha. qolo walba meel baahidooda ku filan oy degaan bay ku leeyihiin. maxay isaga koos garaynaysaa oo kharash ahay inuu isku mid noqdo? qasab maaha, waayo muhiimaddu waa deegaan baahidooda ku filan. imisaa laga bixinayaa muhiimaddu maaha, biilkooda ay ku wada leeyihiin. cadaaladda habeen bariga inay sinaadaan bay ku leeyihiin. wixii intaa ka badan ee intaa ka baxsan waxaa lagaga gudbi karaa heshiis ay raalli isaga yihiin. ama markii hore ha ku heshiiyaan ama markan dambe ha isla ogolaadaan. wax intaa ka badan oon cadaaladdiina ahayn, heshiisna lagu ahayn,
ninku waa ku dembi iyo xaaraan iyo xadgudub xuquuqeed weeye. haddii xadgudub xuquuq timaadana gabadhu hadday danteeda ka aragto talaaq iyo furiin way dalban kartaa. iyadana markay dalbanayso waxay ku xiran tahay markay iyadu xisaabtanto ay wax kala goyso wixii dan iyo maslaxad ugu jirta. waxayna ku fiican tahay intay ka xaajoodaan inay wax kaga heshiiyaan. laakiin iyaduna hadday wixii anfici waayaan xaq bay u leedahay inay xuquuqdeedii dalbato. hadday weyda xuquuqay lahaydna talaaq iyo furiin way dalban kartaa oo dembi kuma aha. hadday iska daysana de wixii dulmi laga galayna oo inaan cafiinna aakharay helaysaa oo aakhara waayi mayso haddii adduunka cadaalad ku weyda. su-aasha labaad ee qoyskiihii waa su-aasha gabadha ninkay kala tageen nin kalena guursatay oo reer leh biilkiiyo waxna loo soo dira ilmaha. daban ilmahani reerkaa dambuu ka mid yahay baan u qaatayoo iyaduu la nool yahay. ilmahaasi labadaba tixgelin bay u baahan tahay. waxa uu leeyahay wixii agoonta kama duwana. dad buu wax la wadaagaa, guri iyo kiruu la wadaagaa, biyo iyo korontuu la wadaagayaa, cunti iyo gogol iyo jiif buu la wadaagayaa, guriga meel buu ka seexanayaa, meelo kalena waa la isticmaalayaa, ama cuntaha lagu kariyo ama fadhi la fadhiista ha noqdo. dad buu wax la wadaagaa. markii saa dad u wadaagaan kharashkuna laba dhinac uu ka imanayo, in shilin iyo senti la xisaabo way adag tahay. labada maalmood ee isku xigtiya labada bilood qofkani isku isticmaal noqon maayo. bilna waxaa laga yaabaa inuu isticmaalkiisu ka bato bisha kale. mar baa qofka abateedku u furan yahay, mar buu ka yar xidhaya wax yar cunayaa, mar buu wax badan cunayaa. waxyaabaha baahidu shilin looma xisaabi karo. saa darteed ba ilaahay agoonta wuxuu yidhi wain tukhaalituuhum fa ikhwaanukum wallaahu yaclamu almufsida min almuslix. hadda wax isku darsataan waa walaalihiin. wax waa isku darsan kartaan, waa wadaagi kartaan, reerkiibuu ka mid noqon karaa, biilkiiyo baahiduu la wadaagi karaa. wixii tacaddi xadgudub dheeraadahoo isaga dulsaar ka badan inta macquulka ee dadka ay noqon karta ka badan ee ku kabadbadiis aan la ogolayn. laakiin shilin in loo xisaabo lama laha. mid labaadna baahida ilmuhu biilka la bixinayo wax ka badan oo daryeelu u baahan yahay. dad baa ku mashquulaya, ka fikiraya. hooyadan haysa waxay xaq u leedahay ujuuro inay ku qaadato ilmahan hayntiisa iyo daryeelkiisa. intaasoo dhani waxay ku quruxsan tahay in laga weheshiiyo. ilmuhu marna waxaa la siiya wuu ku filaadaa, marna wuu cajisaa, wuu xanuunsadaa, meelo ciyaaraha la tagaa, koosas baa laga soo qoraa, marna wax dheeraada ku baxaya. wax badan buu u baahanayaa, mar wuu yaraanayaa. dad baa mas-uulka ahoo hooyada maahane reerkan kale ay noqotay laftiisa ninku inuu marar meelo geeyo howlu qabtaa laga yaabaa. waajibna looguma laha xooggoodii iyo maskaxdooda firi ah inay ku shaqeeyaan. markay intaa timaado xisaabtan shilinkan kan u go'a way adagtahay. markaasoo kale waxaan ku talin lahaa gabadhu ilmaha waa ay hooyadii ninka odaga ay kala tageen inay kala hadasho. war waxna waad soo dirtaa, waad bixisaa, ilmihiina reer buu ka mid yahay. mar buu wax ka dheeraada u baahanayaa, marna wixiisaa wax ka soo harayaa. ee wixii aad bixiso anigaa iyo ilmahaasu wax nala qabayaae haddii mararka qaarkood wax dheeraadoon kara u baahdana dee anigaba waa u dhalay. haddii mararka qaarkood wixiisii wax ka mida isagoo shalay wax ku baxeen maanta anaga waxna galaanna dee wixii ma kala guri karo oo shilin uma kala xisaabi karee sidaa ku ogow oo
anigana wixii xagga iga mara xafis naga mara xafis weeye adigana wixii xagga mara xafis ha noqdo sidaas niyad samaanta ah bay ku fiican tahay aayaddu taasay tilmaamaysaa dadka agoonta hayay sidaasaan dhihi lahaa ha la yeelo gabadha aabbaheed garoobtay aabbaheed wuxuu xanuunsan yahay walaalkeed walaayada ma u dhiiban kartaa waxay ku xiran tahay laba mid aabbuhu ha xanuunsanaadee garashadiisii ma joogtaa hadday garashadiisu joogta weli aabbaha walaayada leh aabbahaana walaalka u dhiibi karoo wakiilan karee iyadu uma dhiiban karto hadday aabbaha xanuunku garashadii ay ka tagtayna wayba ka wareegtay oo walaalkaa leh iyadu inay u dhiibto uma baahnee sharci buu u leeyahay waxaanse dhihi lahaa hadduu jiro walaal ay wada joogaan ama ay ku kalsoon tahay oy jeceshahay walaalka walaayada inuu qaado in aabbaheed ay garashadiisu hadduu joogto la xiriirto tirada aabbo dee adigana waa iska xanuunsan tahay oo waa yeel baa tahay aniguna dee calaf baan leeyahay mar walbana dee adiga kuguma cuslayn karee hebeloo walaalkee aad joogee hebel walaayada noogu dhiib haddii uun calafna soo maro aan isaga la xiriirno wakhti xaaladdu ay deggan tahay intay intaa kala hadasho hayada ay ka gaadho kadibna ay sidaa walaalka walaayadeeda ugu wareegto ee hawshay sidaa ugu dhammaato haddaan wax kaloo dhibaho aabbaha looga dhuumanayo uusan jirino madmadow iyo wax jireenaan lahayn gabdhuhuna waxa walaayada reerkoodii loo yidhi dhibabka hadda nairobi taagan oon kaysas qaarkood ku jirno baa laga badbaadi gabadh nin leh oo reer leh oo haddana nin kale khudbasiraysanaysa kadibna ilmihii dhashay laba nin isku haysta amaan hadda kayskeedu ku jiraa ilmaha yaa dhalay oo reerkoo ilih waranow ninkan baan ognahay ninkan kale xagee ka soo galay isagana ma ogi uu leeyahay annagu aan leenahay waladaa khaldandee gabadhaas reerkooda haddaa ka doonan lahayd markaa guursanaysay in nin kale ay leedahay iyo in kale waa laguu sheegi lahaa kuwo horena laba ninoo ilmo isbitaal ku dhashay isku dullaaya anaa dhalay oo horena waa galay kaysaskooda isla wada nairobi ah khayr allah idin siiye xalaal iftiin baa la qashaa soomaydaan maqal xalaal iftiin haddii la qasho xalaashii xaaraantu way kala caddaan saddexda waa su-aalihii qoyska ahaa su-aasha kale waxay ahayd gabadh ganacsi iyo dana kale u socota maxram la-aan ma safri kartaa hadday dad la socoto wanaagsan oo dumar oo aamin ah jidka safartuna uusan cabsi ahayn way safri kartaa meeshu hadday cabsi tahoo la ysku qalanayo isbaarooyin yaallaanse maya hadday gabdho ganacsata ah ay wada safrayaan jiraan sidii xaj iyo cumraba ay gabdho kale u raaci jirtay bay u raaci kartaa haddaynan ahaynna asalku waa inaynay safri karin haddaan wax daruuraad oo gaaroo duruuf gaaroo la qiimeeyo la daraaseeyo u bannaynaysa aanay jirin su-aasha ugu dambaysa gabadhaa 3 garaam ee dahabka intay meel ka heshay isticmaashay dee ma garanayo isticmaalku ma way xidhatay mise wayba iibsatayo dad bay sii siisay ma garanayo calaa kulli xaal hadday baashii ku luntay ama iyadoo inta iska qaadatay milkida ay ku luntay ama ay dad siisay ama ay sii iibisay iyadii oo kalaa la qiimaynayaa haddaan dad la filaya jirinna qiimihii lagu qiimeeyey iyo masaakiin iyo meelo dana guuda oo looga baahan yahay ay ku bixinaysaa waxayna u niyoonaysaa inay u sadaqaysay qofkii lahaa hadduu adduunka ku calfan waayey aakharuu ku calfan iyadoo hadday dariiqii sharciga ahaa mari lahayd si xalaalay ku yeelan kari lahaydo badida muddo sanada hadday meelihii iyo meelaha loo malaynayo ka raadin lahayd wariyay ka luntay iyo naada ay ka samayn lahayd sanad kadib iyadaa si sharcigo xalaala ku milkin lahayd laakiin maadaama ayna dariiqii sharciga ahaa marin hadda waa xoolo ku lumay oo si xaqdarra ah ugu lumay oo inay iska bixiso iyo guddo loo baahan yahay baadi ay haysa ma aha haddii laakiin dahabkii weli la hayo waa naadadiibay dib ugu noqono
qof kale inay u dhiibto oo gacan aamin ileen gacanteedu aaminne way ka baxday gacan aamin inay gelisaana wanaagsan billahi tawfiiq جزاك الله خيرا شيخ gabadhan waxay soo qortay 3 su'aalood waxay leedahay sheekh maxamuud shible waxaan doonayaa inaan weydiiyo 3 su'aal su'aasha ugu horeysa waxay leedahay sheekh gabadha xaaska ah haddii ay ninkeeda uu dhaho waxaan aad isku qurxinayso jooji sida in suniyaha dhisato waajib bay ku tahay inay iska dhaafto iyadoo rabta arrinkaas su'aasha labaad waxay leedahay sheekh qof aanan weyso qabin quraanka ma ka dhex akhrin karaa abka telefoonka ku jira su'aasha saddexaad waxay leedahay gabadhow sheekh mar walba waxaa dhacda salaada subax inay iga tagto iyadoo aadinka aan maqlayo aanan u kici karin hurdo saa'id ah oo ay hayso darteed haddaan dib ka qalleeyo dambi miyay igu tahay saddexdaas su'aal gabadhaas iska leh waxaan raacinaynaa marka gabadhan kale oo dhahaysa sheekh tarbiyada carruurta waxay ka dhaxaysaa labada waalid haddaba hadduu aabbihii isku koobo biil raadin maxaa laga yeelayaa tani waa su'aashii afraad su'aasha saddexaad sheekh waxay leedahay haddaan turaaxad xiranahay turaaxaduna ay weyn tahay saakadana igu dheganayn ma asturnahay shantaas su'aalood baan sheekh ku wareejinaa insha allahu tacaala بسم الله الحمد لله سؤاشا قبضا نينكادي اسقرحنتا اسكدا ويري طبعا قبضو إنه wax quruxsan xidhato iyo la isqurxiso wax sharciga Ilaahay oo ogolaaday weeye ninkuna xaq uma laha qadarka xalaasha inuu daa yiraahdo xaq uma laha sadarteed diin ahaan waajib kuma aha inay iska dayso laakiin wixii marka horeba aan bannaanayn rabbi baa hore ugu diidayo ninka hortii bayba mamnuuc ka ahayd diin ahaan markaan leeyahay wax kaloo waxaa jira ah qoys ahaan waxay u baahan tahay in la qiimeeyo hadday diidda maxaa ka dhalanaya laga yaabaa qoyska iyo gurigu inuu burburo oo xaaladee iyadaa qiimayn kartee haddii uu jiro qadar ay samayn karto mid kalena xadna hadday dayso qoysku uu badbaadi karo qoysku inuusan burburin waa wax muhiima oo reerka iyo gurigaas la ilaaliyo waana laga yaabaa waxyaabaha qaarkood marxalad isku dhacaya kacdoona inuu jiro dabiicina ma aha nin reer leh xaaskiisa ha isqurxinni inuu yidhaahdo wax dabiiciya ma aha waxay u badan tahay wax kaloo ku dhex jiro oo la ysku qoonsaday baa jira wax kaloo la isqaniinsan yaho la isqoonsanayaa jira hadday wakhtiyada qaarkood reerku ku badbaadayo inay intay warkaa yeeshay kadibna xaaladdu markay degto hawsheeda iska wadato ama qadar iyo noocyo qoyska dumin kara ay jiraan oo ay ka dayso yaan meesha laga saarin qoyska badbaadadiisu waa wax muhiim ah jiritaanka reerkana waxyaabaha qaarkood buu ka muhiimsan yahay xaalado kacdoon ahna wixii lagu dejin karaa lagu dejiyaa laakiin kollaba anugu su-aashaas ima muuqato xaalad dabiici aho
in wax jiro wixii cilladee jirtana la xalliyo baan ku talin lahaa laakiin wixii rabbi sharcigu u baneeyey isagoo kama xaaraantinimayn karo isqurxintii iyo waxeeduna waxay qur-aankaba ku sheegay dumarku dabiico ilaahay ku abuuray inay tahay markuu yidhaha waman yunashau fi lxilyati isqurxin baaba ilaahay ku beerayo ku abuuray su-aasha labaad anaa wayse qabin qur-aanka telefoon ma ka aqrin karaa haa telefoonku musxaf ma aha wuxuu leeyahay xukumka kutubta tafsiirka iyo kutubta kale cilmiga ah ee aayadaha qur-aankana ku qoran yihiin telefoonka wax badan baa ku jira magacyaha ku jira telefoonaha ku jira sawiraha ku jira maasajyaha ku jira saa darteed qur'aan khaalis oo musxafku waa qur'aan khaalis oo keligii ah kutubtan cilmiga ee kale iyo tafaasiirtana qur-aankii baa ku yaalla tafsiir baa ku yaalla hadalladii culimmadaa ku yaalla saa darteed qofkaan wayse qabin tafsiirka qur-aan wuu ka akhriyi karaa cinda ahlilcilmi mobilkuna wuxuu la mid yahay maadooyinkii ay qur-aan iyo wax kaleba ku wada jireen marka waa laga aqrin karaa musxafka qur-aanka laakiin wuxuu ku fiican yahay laba mid inaad samayso ama brogaraamka qur-aanka aad ka akhrisanayso ka iskii u soconaya inuu yahay ee beejka isagu iskii isu rogaya ama aadan gacanta ku taabanee ama qalin qaada adigu aada wax ku gedido waayo musxafku marka uu furan yahay beejkaasi taabashadiisu xukunkii musxafka taabashadiisay noqonaysaa adoon wayse qabinna waxaa wanaagsan qur-aan inaadan taabanin marka si aad u akhrido una taaban ama soo dejiso brogaraamyada masaaxiifta qaar waxaa jira iyagu socdo aayar soconaya sbiidhka socodkana la yareyn karo lana badin karo isagu beejka isrogayo inaada taabataba aadan u baahnayn ama qalin iyo waxa lagu rogo beejka ood ku riixda qaado su-aasha saddexaad wuxuu leeyahay gabadhu waxay leedahay hurdo culays baa salaada subaxay dhaafiya kadib dib qadaheeda ka waran waa laba qaybood qadaha mar walba waa lagaa rabaa haddayba salaadu kaa tagto ama hurdaha kaaga tagto ama halmaana kaaga tagto ama adigoo xasuusana kaa tagto ama ka tegitaankeeda ku dambaab ama ha dambaabin mar walba salaaddii qadaheedii waa lagaa rabaa laakiin salaaddii saa igaga tagtay ma dambaabayaa haddii aada hurdadii kici karto kolba shaydaanku uu ku cuslayn oo nabigaa sheegay sal alla alay wasalam inuu dhinacyada kaa guntayo oo ku leeyahay weli weeye iska yar jiifo waxoogay ku yar cesho waxoogay isyar nab oo shaydaanku waa ku dhahayaa adigana inaad istaagto ood kacdo ood tukato inaad dadaashaa lagaa rabaa hadduu qofku wax awooddiisa ka baxsan yahay dembi ma laha haddii laakiin waxaa caadiga ee hurdada caadiga ee dadka uu la mid yahay ay tahay hadduuba tooso adaanka maqlo ama cidi toosiso waa waajib inuu tukado hurdo inuu sii wato waa dembi hadduusan adaanna maqal ama asal ahaanba uusan kaci karin ilaa wakhti la gaadho ama ay dhici karto mararka qaarkood qof dawo iyo isticmaalay inuu yahay oo ka tanbadatay wixii awooddiisa ka baxsan dembi kuma laha nabiga xilligiisa calayhi salaatu wasalaam gabadh baa ninkeedii soo dacweysay waxyaabay ku soo dacweysay waxaa ka mid ahaa salaadda subax uma kaco oo marka uu seexdo haddii si kasta aan u hadlo oon si kasta u dharbaaxo oon si kasta u jiidjiido ma kacayo halkii su-aashaa marka la soo gaara nabigu weydiiyey wuxuu ihi waa runteed laakiin hiddaan u leenahay reer hebel haddaan nahay habeen haddaan seexanno ilaa qoraxdu jirka yaga kululaysa ma kacno wax kasta hadduu dhaco halkaa hadduu reerku ka soo gubanayo anigaa sidaa ah aabbahay baa sidaa ahaa awowgay baa sidaa ahaa nabigu intuu ku qoslay wuxuu ihi haddaba markaa soo toosto tuko markaa soo kacduun tuko qofkaasi wuxuu sheegtay dee haddaan seexdo
waxaan hiddo u leeyahay maba kici karaba qofkay hurdo dhaafisay la tagtayna nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi laysa fi nnawmi tafriitun hurdadu salaad dayacaad ma aha markaa soo toostaa tukanaysa nabigana way dhacday hurdo inay dhaafisay calayhi salaam sidii saxaabadoo safara oo qorraxdoo soo baxday in cumar ku toosay kulaylkeedii kadibna nabigu uu yidhi intii la weysaystay meeshii laga yar dhaqaaqay salaadoodiis waxay tukadeen qofkaa salaaddii uu tukanayaa haddii uu tukan karayoo dee hurdajiidka iyo culayska aan naqaana wakhtiga iyo shaydaan ka batayna dembi baa u dheeroo istikfaar iyo tawba iyonuusan hadda kadib ku noqonin buu u baahan yahay hadday wax awooddiisa ka baxsan tahayna dembi kuma laha su-aasha kale gabadha waxay tidhi aabbuhu hadduu ilmihii ku kooba mas-uuliyaddiisa biil inuu raadiyo uun tarbiyadii carruurtiina uu dayaco dabcan isagoo kaalin ka qaadan kara inuu dayaco ma bannaana waana mas-uuliyadii waajib carruurtu saaran tahay aabbaha hooyadana qaybteedaa saaran aabbahana qaybtiisaa saaran weliba qaybta culusi aabbaha laga rabaayo ilaahay ku yidhi quu anfusakum wa ahliikum naaran naftiinna iyo reerkiinnaba ahalku xaaska iyo carruurtaa ku jira naar ka badbaadiya wixii awooddiisa ka baxsan dabcan tan kalena waa waajib saaran biilka iyo nolosha reerka inuu ka shaqeeyo iyadana waa waajib kaloo saaran labadiiba inuu isu celceliyaa laga rabaa inta karaankiisa ah wixii uu isu celin waayo awooddiisa ka batana ilaahay baaba yidhi laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha waxaanse rabaa inaan idhaahdaa reerku waa noloshaasoo labada dhinac in la isla qabto bay ku fiican tahay hooyaduna kaalinteeda ay dadaasho aabbuhuna kaalintiisa dadaalo midkii waxoogay duruuf iyo liicana kan kale uu la garab qabtoo la isxasuusiyey ku baahan tahay waajibaadkana la isxasuusiyo la isku baraarujiyo isagana uu dadaalo wixii awooddiisa ka baxsanna iyaduna inta karaankeeda ay kabitaan ku samayso aabbayowgana oon laga yaaba ereyga igu gaadho waxaan rabaa inaan idhaahdaa ilmaha ka warqabkoodu oo waajib sida biilku u saaran yahay u saaran haddii la dayacaana loogu dambaabayo sida kan loogu dambaabayo ilaahi subxaana wa tacaala allah inoo fududeeya tarbiyada carruurta dabcan noloshiina way adkaatay oo qaali bay noqotay tarbiyadiina way dhib badatay oo fitankii iyo duruufihii magaaladu iyo adduunkan aan joognahay aad bay u adkaadeenoo hadday wakhtiyo qaybo badan hooyada keligeed ku fillayd hadda keligeed kuma fillo way ka tan badan tahay gaar ahaan ilmuhu markay soo yar weynaadaan aabbuhu wakhti inuu geliyaa laga rabaa rag badan oo soomaaliyeedna fadhi ku dirir iyo mahaayado fadhigood baa ka mashquuliyey wakhti badan oo carruurta iyo ka warqabkooda ay gelin lahaayeen su-aasha ugu dambaysaay tilmaanta ay tilmaantay gabadhu asturaaddii ma noqonaysaa san marar badan ku celceliyo asturaadda xijaabka gabdhuhu magac gaara ma laha modeel iyo design gaaranana ma laha qaab gaaroo loo talo iyo maro gaara uu ka samaysan yahay ma laha shucuubta iyo muslimiintu qurunta kala duwan iyo shucuubta kala duwan dadka ama wakhti kala duwan ama goob kala duwan joogana isku curfiya dhaqan iyo labis maaha sharcigu saa darteed shuruud buu dejiyey dhar kastoo shuruuddaa buuxiya xijaabkii sharciga ahaa waa yahay midba midkuu buuxinta shuruudda kaga fiican yahay buu ka sii wanaagsan yahay oo haddaad Soomaali nahay Afrikadan galbeed haddaad tagto isku labis ma nihin waqooyiga Afrika haddaad tagtana isku labis ma nihin meelaha dharka raggu xirto dhar dumar xidhaan ka yihiin
meelaha qaarkood macawista dumar baa xidha Afrikada ka mida rag ma xidho waa dhar dumar haddaad Asia iyo Pakistan iyo tagto inta aan sheegnay Afrika iyo iyagu isku labis maaha isku curfi iyo labis maaha ma xadaynin sharciguna mana cidhiidhiyin magaca dharka qaabka loo xiranayo dizaynka loo tolanayo ma xadaysna kaliya shuruudii sharciga laga rabay intii la rabay inuu qariyo inuusan ciriiri ku dhagan oo xubnaha jirka bannaanka tilmaamaya ahayn inuusan khafiif waxa ka shaqeeya la arkayo wax maqariyo ah uusan ahayn inuusan ahayn dhar rageed uusan ahayn iyo shuruudii loo xiray dhar kasta oo laga helo waa xijaab sharci oo asturaada waqtiga nabiga calayhi salaatu wassalaam xadiidu markay ka sheekeynayaan haweenkii muslimiinta ee masaajka iman jiray go'bay ku dadnaan jireen mutalaficaatin bimuruutihin go'bay ku dadnaan jireen go' weyn bay ku soo dadin jireen annaguna waa soo gaarnay Soomaalida dhaqankeedu iyagoo gabdhuhu go' weyn xirtaan marba dhar cusub oo soo galay magaalada iyo noocyadiisa ha kala duwanaadaan go'a laftiisu marba hadba dharkaa socdo midab iyo nooca uu yahay jiray haddana waa sidii asturaadda intii laga rabay gabadhu hadday asturto dharkii laga rabay inay ku asturtaay dizaynku dooni ha u tollaado magacuu dooni ha lahaado sharcigu waa xijaab sharci ah waay kadib intaa wixii ka dambeeya dizaynka kala duduwiyo kala qurxiyo kala rada kala duwiyo waa baab majaalahu furano asalkii sharcigu xijaab astura hadduu noqdo intaa wixii ka dambeeya dadku iyagaa xor waa curfigoodii iyo caadadoodii iyo labiskooda wabillahi towfiiq shukran sheekh maxamuud gabadhan waxay leedahay sheekhow marka aan soomanahay xaaqo ma laqi karaa soonka ma jabinaysaa aan ku celiyo su-aasha sheekhow markaa soomanahay xaaqo ma laqi karaa yani xaaqada soonka ma jabinaysaa saa'ilada labaad waxay leedahay marka aan salaada ku jiro oo aan hindhiso alxamdu lilaahi miyaan dhihi mise salaada ayaan sii wadanayaa saa'ilada waxay leedahay salaada markaan ku jiro oon hindhisoodo salaadii miyaan sii wadanayaa mise alxamdulillahi baan dhahayaa ma dhihi karaa alxamdulilah su-aasha saddexaad saa'iladan waxay leedahay haddii aan qof nafta dhaafiyo nacuudu billaahi aanina la idilo maalinta qiyaamo dembiga ma liga dhaafayaa mise antiil bay tiri dembiga waa lii haystaa su-aasha waa la fahmay koley haddii waxay tiri aan qof nafta dhaafiyo anigana la idilo maalinta qiyaame dembigii ma lii haystaa ugu dambayn su-aashan waxay leedahay marka haweenaydu caado ku jirto oo ay timaha shallaynayso timaha ku hadha shanlada ma u habboon tahay inay mayrato marka ay samaynayso tahaarada ma garan la fahmin kale su-aashan gabadhan waxay leedahay marka haweenaydu caadada ku jirto oo ay timaha shallaynayso timaha ku hadha shanlada ma u baahan tahay inay mayrto
marka ay samaynayso tahaarada maaqan waa shan garmanaya حتى طبعا تميك وعملنا بسم الله سؤال قفك الصومن حاكذا هدي للقاء ما تشبيسه حاكذا والله بحالة طبعا أصلك حاكذا والله بالنوع mid kor bay ka soo dhacdaa midna qofka isaga qof dhunta intay xaaka iyo iska doono ama uu qufaco bay soo go'daa labada dhinac way xaakadu ka timaadaa laba xaaladood bayna noqotaa oo ay martaa inuu tufi karo qofku iyo inuusan tufi karin oo markay soo dhacday iyo dhuunta meesha ay joogto midba horey u gudubta oosan soo hadduu tufi yidhaahdaba uusan gaari karin taasi soon ma jabiso waa wax awoodiisa ka baxsanba tan uu tufi karo soonka ma jabisaa masaa'ilka fuqahada culimmadeennu ay isku hayaan way jabin iyo ma jabinayso waxaa wanaagsan inuu iska tufo midna ogaado cibaadaadkaaga soonka iyo salaada iyo inaan muran iyo khilaaf kaa gelin bay ku fiicanta oo cibaado aan muran ku jirin aad ilaahay hortiisa geysato maalinkaa qiyaamada iyo aakharada la baahan yahay aad u baahan tahay inaad geysato waxaan muran ku jirin bay ku fiican tahay marka halliqin soonkaagiina khalkhal iyo shaki iyo khilaaf ha gelinin qof salaada ku jira oo hindhisooday alxamdulilaahi ma dhihi karaa haa salaada waxba ma dhimayso faatixadaba alxamdulilaahi sooma dhahay markaa akhriyayso keliya laakiin markaad hindhisooto aad alxamdulilaahi tiraahdo laba xaaladood baa xukun kale ka dhalanaya haddaad alxamdulilaahi dhahdo faatixada dhexdeeda faatixadu waxaa la rabaa inay xidhiidho bilow ilaa dhammaad wixii awooddaada ka baxsan waa cafis waad qufacday waad hindhistay awooddaada ay ka baxsan tahay waad sii wadi faatixada laakiin haddaad soo dhexgelisa alxamdu lilaahi faatixadii ma xidhiidho waxay u baahanaysaa alxamdulilaahi waad dhihi kartaa salaadaadana waxuma dhimayso laakiin faatixada hadday dhexdeeda ahayd waa inaad faatixada soo bilowdaa faataxa xiriiraa loo baahan yahay alxamdulilah anadaa khiyaarkaa ku dhexgeliyey waajib baad ku jirtay alxamdulilaahi waajib ma aha adaa waajibkii dhexdiisa sunno soo geliyey saa darteed bay culimmadu ka soo reebaan faatixada markaad aayadaha qur-aanka akhrinayso meel duca haddaad soo marta inaad ducaysataa la ogolyahay ama janno aad soo marta ilaahay weydiisato ama cadaab intaad soo marta ilaahay ka magan gasho waa la ogolyahay ducada faatixada laakiin maya faatixadu waa inay xidhiidho qur-aankan kale akhriskiisa waa sunno la dhexgeliyeyna waa isku nooc ta labaad waa ataxiyaadkana inuu xidhiidhaa la rabaa waa waajib isna aadan kala goyn hadday hindhisadu ataxiyaadka dhexdiisa kugu qabsato ka soco alxamdulilaahida haddii aad dhahdo ataxiyaadka dib u soo bilow laakiin salaadaadii ma buraysee waxaad aqrinayseen labadan meeloodoo xidhiidh u baahnaa bay xidhiidhkii kala jaraysaa maadaama ay sunno tahay faatixiya ataxiyaadna aynan ahayn intaa unbaa ka dhalatee salaada dhexdeed alxamdulilah waa la dhihi karaa qofkii ku maqlaya arxamukallah ma ku dhihi karaa weeye waxaa la isku haysto qisaasta qofka intuu qof dilay la qisaasay ee kas u dilay dembigiisoo dhan ma la dhaafayaa maya qofka markaad disho laba waxbaa ka dhalata qofkii aad dishay waxaad u geysatay iyo xuquuq dadka nool ay leeyihiinoo xanuunka aad badday ah xuquuqdooda aad nooshahay
xoolana way u qaadan karaan maga xanuunkii aan ciil baxanay hanaloo dilana way dhihi karaan laakiin adiguba isweydiiyo qofkaad dishay muxuu ka faa'iidayaa xoola lagaa qatay haddii lagu dilay isaga horta muxuu ka faa'iiday kii aad nafta dhaafisay ee aad cadaabtay ee aad xanuujisay isaga muxuu ka faa'iiday yaa ciil baxay kuwa nool yaa xoolo qaatay kuwa nool laakiin qofkii aad xanuujisay ee nafta ka qaaday ee dhibka u geysatay dhintay isaga dhibkaad u geysatay maxaa u ah bedel isaga xaqiisii aakhara wuu kaa horeeyaa aakhara ilaahay intuu ku qabsado ilaah yaa rabbi sal hadaa fiima qatalani kan muxuu igu dilay ilaahay ii weydii isaga xaqiisii qoortaada waa ka lalmadaa waxa lagaa gooyey waa dadkii dunida joogay xuquuqday lahaayeen ama xoolo kaaga qaateen kafaara haddaad bixiso oo towbad keentana xaq rabbi oo ka dhashay addoonkiisii uu cibaadada u abuureed ku xadgudubtay bay kafaarada iyo towbada astakfirullaahuda kaa daboolaan haddii laga aqbalo laakiin xaq bini aadam inaad gudduu kaaga gudmaa qofka aad dishaed xanuujisay weli xisaabta waa idiin dambaysaa isaga ilaahay fadli waasiciisa hadduu isagana raalli geliyo adna uu kaa daayo oo isagii kaa qanciyo rabbi waa awoodaa wax walba laakiin asalku waa xaq bini aadamo waa diiwaanun laa yukfar weeye diiwaanaan la dhaafin ilaa isagii ay ka timaado ama xaqiisii la gudo saa darteed qof muslim oo dhiiggiisa xaqdarra lagu daadiyey ma sahlana su-aasha ugu dambaysa haddaana wax ka boodin gabadha caadada qabta markay shallaysanayso shallada timaa raaca inay dhaqda ma lagu leeyahay dabcan waa dhowr jeer muddaday gabadhu xilliga caadada ku jirto way qabaysan kartaa way shallaysan kartaa way saliidaysan kartaa wakhtigaa weli aynan caado ka daahirsanaynin timaha go'aya haddii wax dhaqitaana loogama baahna oo iyadiiba ma daahirsanayso timuhuna nijaas ma ahee gabadha jirkeeda iyo timaheeduna nijaas ma ahee tahaaro qaadashada waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala xukun ka dhalanaya weeye oo tahaaradu axkaamta qaarkeed oo ujeeddada iyo xikmadda ka dambaysa aanan garanaynin bay ka mid tahay waxaa timaha loo dhaqayo iyadoo caado tima aynan ka imanin iyo waxa intay qofka soo qabaystay ee weysaystay ay neef ka timid aan meeshay neeftu ka timid la dhaqaynin ee wejiga iyo gacmaha loo dhaqayo oo adoo hadda soo weysaystay oo soo qabaystay haddii weysadii kaa jabto ee neefi kaa timaado istijaysa lagu dhihi maayo saxariya kaadi waa laga istijaystaaye waa lagu dhihi weysayso wejiga dhaq dee wejigu waxba ma samaynin waana nadiif haddaa baan ka soo baxay qabayskii baafke maya weysayso waa qayb ka mid a axkaamta inaan rabbi addoonnimada aqbaloon amar qaadanno laynagu barayo saas darteed tahaaradan caadada gabadhu ka qabaysanaysana taasay ka mid tahay wixii dhiiggii isaga hadduu nijaas yahay iyo intuu gaaray la dhaqa garanay jirkao dhan ha la qabaysto janaabada iyo caadada iyo waa addoommada axkaamta ilaahay ku addoonsaday marka timuhu nijaas ma aha qofka xilliga qabayska laga rabana markuu Abu Hurayra yidhi rasuulka ilaahay oo waxaan kaaga dhuuntay daahir ma ahaynoo waan soo qabaysanayay wuxuu yidhi subxaana allah qofka mu'minka ma nijaasooba xayan walaa mayitan nabiga sal slam isagoo noo soo dhintayna marta nijaas maaha dharka timihii dhaqitaanno ma baahna waxaa soo haray marka ay caadadii ka qabaysanaysa hadday tahay xilligaas ay tahaaro qaadanayso oy caadadii ka qabaysanaysana taa kalun bay la mid tahay timaha go'ay xukunka timaha ku yaalla ma leh hadday shallaysato qabayskii ka hor ay timo go'aan jirkeeda inta ku taalla unbaa laga rabaa inay qabaysato oy tahaaro qaadato timaha ha la dhaqana waxba loogama baahna iyo haddii kale sheekadu way dheeraanoo ciddihii la gurayna ma la dhaqayaa wey dad baa waxay yidhaahdeen kutubta fiqigan qaar ku arkay in la dhaqaa wanaagsano qofku aakhare marka la soo saaro
wixii tin iyo ciddi uu gooyey baa dib loogu soo dhajinayaa wax daahir aan ahayn inuu ku soo dhigo ma ficno waxa waxba kama jiro wax la isku soo celinayo hal waxun baa la sheegay wixii gudniinta xubintii la jaray waa la soo celinayaa xufaatan maxaa la yidhi sheekh axmed gurlan soo ma ahayn wixii la gooyo markii la isgudayey waa lagu soo celinayaa laakiin timuhu waxba dhaqitaan uma baahna haddii intaad nadiifiso aad meel qashina ku dartana dhibaato ma laha sida kuwa kaleba aad ku samaynayso wabilaahi towfiiq jazaaka allahu khayran su-aalihii baan sii wadaynaa gabadhan waxay leedahay sheekh qofka haddii qabriga lagu cadaabo qiyaamo cadaabteeda miyay ka yaraanaysaa macnaha haddii qofka qabriga lagu cadaabo qiyaamada cadaabkeeda ma ka yaraanayaa gabadhan waxay tiri waa ku dhowdahay nabiga sala allahu calayhi wasalama isra iyo micraaj dadkuu arkay waxaa ka mid ah qof dhagax madaxa laga dhufanayo marka wuxuu arkay ma qof aakhira joogaa oo hadda waaba la joogaa aakhirada miya marka gabadha saasay tiri su-aasha ku xigta waxay tahay sheekh qur-aanka waxaa lagu sheegay dhaxalka sida loo qaybinayo miyay ansaxaysaa haddii aabbihii waxa ay caddaanka dhahaan oo kale wiil qura ayaa dhaxalkii oo dhan lagu qorayaa arrintaasi miyay ansaxaysaa gabadha waxay leedahay qur-aanka dhaxalka ayaa lagu sheegay marka miyay ansaxaysaa haddii aabbihii uu yidhaahdo wiil keliya ayaa lagu qorayaa dhaxalka oo dhan alxamdu lilah qofka qabriga haddii lagu cadaabo aakharada dambe marka la isa soo saarana ma la cadaabayaa waxay ku xihan tahay nooca dembigiisa dad waxaa jira qabrigana lagu cadaabi kadibna la cadaabi qur-aankana lagu sheegay fircawn markii laga sheekeynayay ee gaal ilah wuxu uhi annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiyan wayowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab subax iyo galabba inta aakhare bacdiga ka horaysa cadaabkaa lagu soo loo bandhigayaa qiyaamo marka la gaarana waxaa la dhihi cadaabkii weynaa geliya isagoo dee marba hadduu dhintay oo gaalnimo ku dhintay cadaabkiisii waa leeyahay si janno loo geeyaba ma laha oo jannada ilaahay innahu man yushrik billaahi faqad xarama allahu calayhi aljanna janna waa laga xaaraantinimeey waxaa dhici karta dunuubta loo cadaabayo dunuub cadaabulqabrigu uu dhaqi kara inay tahay dadka mu'miniinta dunuubtooda qadarka qabriga lagu cadaabay hadduu qabrigii qadar u dhigmo yahay dembigii uu galay halkaasaa looga tirayaa haddii uu qabriga qadarka lagu cadaabay weli dunuubtii uu galay aynan dhannayn gaar ahaan dunuubta xuquuqda aadamaha ah dee dadkii cafiyo ama looga gooyo unbay ku dhammaan kartaa laakiin dunuubta xaqullaahi ah qaar uu iska cafiyaa qayb acmaal saalixood samaysay baa lagugu cafiyaa qayb masaa'ib adduunka kugu dhacday baa lagaaga cafiyaa qayb cadaabulqabriga lagaaga dhaqay oo lagaaga cafiyaa marka dunuubta qaarna way ku dhaqmaan cadaabulqabriga qaybna cuquubadoodu way ka weyn tahay wax cadaabulqabri ku dhammaado oo cadaabka weyn bay u gudubtaa ama gaal ha noqdo ama qof muslim oo xuquuq bini aadam la tegay aakhara ha noqdo iyo dunuub
qadarkeeda ma ku filan tahay ma kuma filla rabbi baa garanayo inagu ma garan karno su-aasha xigtee ah nabigu sal ly salam dadkii la cadaabayay ee uu arkay ma cadaab dhab uu ahaa waxyaabaha nabigu soo arkay sal ly salam ee uu axaadiidta kaga sheekeeyey horta israa walmicraaj ma wada ahayn asnaaftan la cadaabayo mashhuurkeedu waa xadiidu ru'ya riyay ahayd israa walmicraajna isaga oo nool oo la kaxee qaaday buu ahaa wuxuu israa walmicraaj soo arkay isagoo nool buu soo arko oo wax xaqiiqa u ahaa laakiin wixii riyada uu ku soo arkay riyadu hadba fasirkeedu suu noqda weeye inta badan riyadu tusaalay noqotaa wax la tusaalaynayo fasirkeedu marar badan wixii la arkay wax aada uga duwan buu noqdaa nabiyullaahi yuusuf markuu ku riyooday 11 kowkaban washamsa waalqamara ra'aytuhum lii saajidiin dayaxa iyo qoraxda iyo 11 xidig aabbihii iyo hooyadii iyo 11 walaalihii ay noqdeen nabigu markuu arkay 2 baaloonoo waaweyn oo intuu afuufay buubay 2 beenaaloo nabinimo sheegan doontuu ku fasiray ru'yada waxa la arko fasirkeedu sidii inuu noqdo qasab ma aha nabi yuusuf markii ay u sujuudeen sharcigooda ay ku bannaanayd ee walaalihii iyo aabbihii waa ka yidhi hadaa ta'wiilu ru'yaaya min qablu qad jacalahaa rabbii xaqan riyadaydii fasirkeedii weeye meesha macnaheedii ilaahayna xaq buu ka dhigay wixii uu arkay iyo waxa ay noqotay tiradii waa isla yihiin sujuuddiina way taallaa laakiin dayax iyo qorax iyo xidigo meehee dad wey marka xadiidka asnaafta dadka la cadaabaya ee mashhuurka ahi xadiidu ru'ya baa la yidhaha riyay ahayde ma ahayn isagoo nool oo nabiga la sii qaaday ma ahayn sala allahu calayh alih wasalam dhaxalka ilaahay qaybiyey qof kaliya aabbuhu ma siin karaa ama wiil ha noqdo ama gabadh ha noqdo ama qof gaara ma qadin karaa oo hebel dhaxalkayga ama heble wax kuma laha ma dhihi karaa maya wixii uu yidhaahdo waa iska laqwi hadal waxa kama jiraana weeye wixii isxooga waa xoog oo iyadoon dhaxal ahaynba xoolaha waa la isdhacaayo waa la isxoogaa qofkii dhacsan karana wuu dhacsadaa qofkii kalena xuquuq ka maqan oo aakharo uu sugayay noqotaa laakiin sharci ahaan maxay noqon xataa dardaaran intaa ha la siiya hadduu yidhaahdo dadka kale haddaynan oggolaanin waxba kama jiro oo waalidku kuma dardaarmi karo hebel keliyaa leh intaa hebel ha la siiyo intaasaan hebel u dardaarmay hebel dhaxalka iyo heblo waxba kuma leh isagunbaa dembaabi maahane wax saamayna ma laha dhaxalkana saa waalidku kama yeeli kara sidii ilaahay u qaybiyey bay tahay in loo qaybiyo ilaahay laga baqo wabilaahi towfiiq alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah bacd su-aalaha weli way badan yihiin waan soo kookoobaynaa insha allah su-aalaha salaaddina waad maqlaysaan waa la aadaamay qofkan wuxuu leeyahay saa'ilkan haddaan hebel wax siiyo xaaskayga iga furan hebelkana igama maarmo maxaan sameeyaa saa'ilkan kale wuxuu leeyahay waxaa jirta haweeney waayeel ah oo xanuunsan mararka qaar waxay tukataa xijaab la'aan maxaa yeele qof saacidayoo dharkii iyo wixii u xirxiraya ma haysato mararka qaar salaadaha dhan bay jamcisaa sida duhurka iyo casarka iyo maqhribka iyo cishaha aad bay u xanuunsan tahay arrimahaas ma u bannaan yihiin su-aashan kale waxay leedahay
sheekh hadda xagga aabbaha haddaan wax weli ah ii joogin abtigay ma i bixin karaa su'aashan waxay leedahay sheekh markaan yaraa oon soo qaangaaray ayeeydey baa waxay i dhihi jirtay markuu soonka galo waad yartahee soonka iska fur markaan weynaaday waxaan ogaaday in soonkaa liigu leeyahay mana xusuusto ayaamihii intay dhannaayeen maxaan sameeyaa bismi illah alxamdulilah waa 4 su'aalood su-aasha koowaad wuxuu yidhi ninku hebel haddaan wax siiya xaaskaygu iga furan yahay hadduu wax siiya way ka furmi hebel igama maarmo dad kaluu dhihi karaa wax siiya wixii isagu qofku ka dhaarto hadduu qof kale samee yidhaahdo qofkaa kale u sameeyo waxba xukuna isaga ma qabanayo hadduu uga jeeday wax aniga xaggayga ka yimidba hadduu gaadhana xal ma laha allaahumma intuu siiyo oo dalqadii dhacdo uu rajactu yidhaahda hadda kadibna is-ilaaliyo maahane oo halkaa hal dalqadii ku tagto haddiiba inay tii ugu dambaysay ka noqonin oon reerku ka burburin haddii uu wax siiyo uusan wax siin maayo intaa uu yidhina xilada keliya anuu aan xasuusanayo waa inuu dad kale ka dalbada inay siiyaan isagu dib haba uga gude waayo wax toosa isagu ma siin qofkii qof wax samee yidhaahdana isagu ma samaynin amarkaa uu amray samee uu yidhi isagoo kii sameeyey ma aha markii nabigu yihi muruu awlaadakum bisalaati xaruntiinna salaadda fara isagu ma tukanin dee hadday tukadaan isagu uu faray ma tukanin hooyada xanuunsan ee xijaab la'aanta tukanaysa ama salaadaha israacinaysa waa 2 mas'alo salaadda soo gashay hadday dharkii wax u xidha ama siiyo weydo iyaduna qaadan weydo salaaddeeda way ansaxaysaa walaa yukallifu allaahu nafsan ilaa wusahaa wey culimmadeenna waxay ka hadlaan qofkii dharba waaya muxuu samaynayaa wuu tukanayaa oo dad baa maxaabiis meelo inta lagu xidho dharkaba laga dhigaa salaaduna u soo gashaa xaggaa lagaa rabaa tigtore saas darteed hooyadaas salaaddaa xijaabka wakhtigiina joogo iyaduna qaadan kari weyday cid soo qaaday iyo cid u xidhana weyday sida inta ay haysay ku tukan salaaddeeduna way ansixi salaadaha jamcintooda salaadaha qaar horey la isu raacin karaa jira laakiin gadaal aan la isu raacin karin qolaan horey la isu raacin karin baa jiraan leh duhur iyo casar horey waa la isu raacin karaa gadaalna waa la isu raacin karaa maqrib iyo cisho hore iyo gadaal waa la isu raacin karaa laakiin markay casar iyo maqrib timaado horey la isuma raacin karo laakiin hadduu casarkii ku dhaafo wakhtiga maqribka waa tukan kartaa salaadaha marka la jamcinayo hadday awoodi weyday wakhtigii salaaddii ama ay halmaantay mashquul iyo xanuun hayay iyo darteed dib markii ay ama soo xanuunkii aan miyirku tegin weeye waxaan ka hadlayno ay la tukan weyday wakhtiga dambe marka la gaadho wakhtigii awoodda hadday israaciso ama halmaan ku tegay oo qofku dib iska raaciya dhib ma laha hadday wixii marmara qof xanuunsan ama mashquulaya uu horay duhur iyo casar ama maqrib iyo cisho isu raaciyana ama gadaal isu raaciyana marmar wixii dhib ma laha oo nabigu madiine isagoo jooguu duhur iyo casarna israaciyo maqrib iyo cishona israaciyey markii ibnu cabbaas iyo la weydiiyena ay dhahaan ummaddiisu ciriiri badan inayna gelin buu ugu talagalay mar kastana ma samaynina marmar buu nabigu sameeyey sala allahu alayh alih wasalam wixii salaado ee wakhtigoodu tago oo dib laga tukanayo waa la israacin karaa
hadhow inay waqtigoodu tagay qofkii cudurdaar lahaana dembi ma laha qof aan cudurdaar lahayn ee dayacayna uu dambaabayaa laakiin hooyadaasi hadday waqtigeedii haleeli weydo dib way iska raacin kartaa hadday xanuunka iyo duruufta u diidayna dembi ma laha su-aasha xigta waxay leedahay gabadhaan xagga aabba weli a lahayn xagga hooyadeed weligaa ma nikaaxin karaa oo weli muu noqon karaa haa weligu xikmadda laga leeyahay waa qof gabadhan dar yeelaya meel wanaagsan inay gashana la doonaya meel godxun inay ku dhacdana uga ba'ayoo ka naxaya weeye oo wanaaggeeda jecel waraabo inay gacan u gashaana ka xumaanayo ay dhibayso oo ka ilaalinaya abtiguna dadkaasuu ka mid yahay gabadhu sabab kastaba ha keentee xagga aabbaha ama aabbo iyo awow iyo walaal iyo adeer iyo in adeer iyo haddaynan lahayn xagga aabbaha weli ah xagga hooyada weliga ahee abtigeeda iyo awowgeeda hooyi iyo booskii weliga way u geli karaan waana gurin karaan haddaynan meesha aan joogin oo qoladii xagga aabbaha fog yihiinna sidii qisada tii hadday aan sheegayo waxay ku fiican tahay in raabti waa yidhaahdaan de war gabadhi annagay nala joogtaa waadna kala fog tihiin de berri haddii calafkeeda ilaahay keeno gabadhii de nagu ogow qofka walaayadeeda ila walaayadeedii abtigeeda ama awowgeed ama ku ogowde saan isku ogaanno ama hooyadeedba ay wakaalad ka soo qaadato inay wakiilan karto hooyadu hal xaalaa la ogol yahay adaa wakiiligaa gabadha walaayadeedii lama dhihi karo laakiin wuxuu dhihi karaa ciddii munaasabeed kuu dhoweed aragto u wakiilo adoo aniga imatalaya inay iyadu cid u wakiilato wuu u diri karaa laakiin iyadu wakiil rasmi ah ma noqon karto ayaydii baa markaan yaraa soonka ii diidi jirtay oo waad yar tahay dhihi jirtay ayayooyinkii meehee waalidkoo dhani ilmuhu markay yar yihiin wiil iyo gabadhba way badatay inay yidhahdaan waa yar tahayoo ama waad yar tahayoo ma soomi kartidoo ma kari kartid hadduu ilmihii dib ka ogaado mise hadduu marka horeba og yahay haddii ilmihii marka hore ilmo wax la baray uu yahay oo og yahay waajib inay ku tahay laakiin waalidku markay saa yidhaahdeen weli ilmanimadii ku dambaysay uu isaga daayey qadihii waa lagu leeyahay iyo istikfaar ilaahay dembi dhaaf inuu weydiisto hadduusan ogeynba waajib inay ku tahay marka uu ogaado waajib inay ku tahay wixii ka dambeeyuu gudan wixii ka horreeyeysan ogeyn waajibba inay ku tahay laguma laha qadana laguma laha waalidkaana allah u dembi dhaafo kollaba dembi gal isma lahayn baan rajaynaynaayo rabbigaa caasi isma lahayne caatifadii iyo ilmaha jacaylkiisii unbaa ka batay su-aashaa tiradii haddaanan garanaynin waxaan idhahdaa marar badan dee anugu aayad iyo xadiid inta la akhriyo tiro la halmaamay lagu xasuustay intay ahayd ma garanayo oo tiradu intaasay ahayd xisaab sheegaysa lagu keeno haddii aad intaad dadaasho dadkiina waraysato wakhtigaad qaan gaadhay iyo wakhtigaad soonka bilowday waxaan filayaa waa la kala garan karaa qiyaastii xilligaa 15 sano kuu dhammaatay iyo sanadkaad inaad soonto bilowday qiyaasta ugu dhow ee la qiyaasi kara garan karo ku salee intaa wixii qadaheeda ah qadee wixii kale ilaahay dembi dhaaf weydiiso wabilaahi towfiiq بسم الله سؤاشي waxay leedahay gabadhan nin aan ilma abti ilma eedanahay oo abtigay uu dhalay hooyadeyna ee eedo u ahayd ayaa dhul isiiyey wuxuuna i dhahay dhulkaas guri ooga dhis eedo macnaha waa eedadiis ayadee hooyadeed aad ku hayso ninkii waan isguursanay ugu dambayntii ilmaana u dhalay kadib wuu dhintay hooyana way dhimato asaga eedadiis ahayd dhulkii isaga ahaa
dhaxal muu gelayaa mase anaa iska leh hadalka see u dhigtay marka hore wuu isiiyey bay ku qortay dhulka wuu isiiyey marka in la dhisay iyo in kalena may caddaynin waxay leedahay marka dhulka ma dhaxal baa mase anaa iska leh su-aasha labaad su-aashan weliba 3 qayb ahaan weeye qaybta koowaad hooyo canug nuujinaysa canuguna uu mar walba ma tagayo markay tukanayso naaska inay dhaqdo ma sharti baa ma tagu ma nijaasaa waa qaybta labaad qaybta saddexaad ee su-aasha waxaa weeye waxaan arkay masaajid gabar dhex fadhido oo qur-aan akhrisanaysa kitaab tafsiir bayna haysatay markii salaaddii la gaarina salaaddii may tukanin xukunkeedu muxuu yahay malakii la galay oo la tukanayayna dadka lamay tukanin sida muuqata gabadha daahir maysan ahayn yay u qaadatay allahu aclam su-aasha saddexaad waxaa weeye sheekh qur-aanka waxaa lagu sheegay ilaahay inuu dembi kasta dhaafo meel kalena waxaa lagu sheegay inuu shirkiga dhaafin see lisu waafajinayaa su-aasha xigta waxaa weeye sheekh ilaahay ha ku barakeeyo walaashay oo iga weyn anigu waan xiriiriyaa laakiin iyada way ii xanaaqsan tahay maxaan samayn karaa su-aasha xigta waxaan u malaynayaa tan waa laga soo jawaabay wax ku dhow gabar baa waxay leedahay ilmo agoon baan haystaa waxaa ku jira wiil 16 jir ah laakiin mar walba xamar baan u safraa dad baana israacnaa safarka isaga diyaaradda xukunkiisu muxuu yahay maxram la'aan wiilka waxaan u kaxaysan la'ahayna xagga kharashkan ii saamaxaynin waa 5 su'aal 6 bay noqday shan ku dara gabadhan waxay leedahay cirbadda dhasha lagu kala fogeeyaan isticmaalay dhiig baan fakaday kadib 15 beri waan ka qabaystay 3 beri 5 beri 4 beri kadib iyo haddana dhiigii soo noqday maxaan samayn karaa salaadahaygii maxay noqonayaan u dhaxeeyay 5 beri iyo 6 beri wallahu a'lam بسم الله الحمد لله كل صلاتنا والله قيم الرباب عن فيليا سكوب كوبان سؤال سفر وان كسر جوابنايو وحبا كن نقن مايو سؤال كسابسان دولك نينكا وسيي هديو دولك إيادا سيي ملكي هانو سيي إيادا يالانيسا هانتيو حوالها يلادا هايبين نقن ودحال قري مايان هديو ايا هايد هو يودس waxay su-aashay man ma la dhisay xoolaha lagu dhisay xagee ka yimaadeen oo dhismahan yaa leh waxaan waa adduunyihii xoolaha hadduu mugdi iyo madow galay ninkiina uu dhintay oo dhaxalkiisu adiga carruurtaaduba aad leedihiin waxa gaarku ugu soo aadana wax iska yar waxay kaa gara marana waxaan ilmahaaga iyo galayay adduunyadu intii shubha ku raaci lahayd haddaadan ishubin inaad dhaxal gelisay ku fiican tahay adiguna madmadow iyo mugdi uusan waxba kuu dhuuman laakiin hadduu adiga ku siiyey milki adaa iska leho dhaxal geli maayo matagu ma nijaasa mise waa daahir asalkiisu daahir weeye wax daliil oo sharci oo nijaasaynayana aniga ma ogi intii nabiga calayhi salaam xilligiisii hooyooyin ilmo nuujinayeenee diliqoodii hal meeloo halla dhaqan lagu yidhi oo suganoo ansaxday aniga ma arag wax walbana asalku inuu daahir yahay baa asal ah wixii nadaafadaad isaga dhaqdana waa wanaag wixii da masaajid iyo inuu gaadho wasakh noqonayana lama ogola gabadha qur-aanka ka akhriyaysay tafsiirka طبعا هذه عادة قبتي وحلي فصحة كترتي أما صار خلاف قرآن كآخر كيس أما تفسيرها لقى آخرية أما حفظها لقى آخرية مسألة خلاف ومربض صونا ونقطة وحاول أكسن هدان وحكو قصب يجرين وامتحانات لقليه يا 10 هالماما يسعاني هين إني السكتي انت كظاهر نقونيسو يا وانا أكسن ilaahay dunuubtoo dhan wuu dhaafaa shirkigana ma dhaafo
marka la leeyahay inna laa yakfiru dunuuba jamiican waxaa loo jeedaa shirkiga maahane labada aayadood marka la isu geeyana waxay isku noqon macnaheedu inna laa yakfiru dunuuba jamiican ila shirka dunuubtoo dhan buu dhaafaa wixii gaalnimada marka laga reebo saas darteed isagaa inugu yidhi gaalnimada ma dhaafee ogaada haddaan idhahdo dunuub baan dhaafaa waa wixii gaalnimo aan ahayn labadaba saasay isku waafaqayaanoo midna dunuubtay caam u tahay guud midna shirkiga ay ka soo reebtay shirkigiin baa laga saarayaa hadda haddii la yidhahdo dadkaas lacagtan ha loo qaybiyo la yidhahdo laakiin hebel kuma jiro ama heble kuma jirto dadkii waa loo qaybinaya hebel ama heblena bannaankaa loo saari sidaasoo kaleeto wey walaashay weyn ima xiriiriso anigu waan xiriiriyaa 3 arrimood samee aad u xiriirinta wad ilaahayna u bari wixii ay kuwa isku cafin kartaan ee aan dembi ahayn ee ku soo noqon kartana u samee yaad adiguna awoodo inta hadday anfici weydo adu xiriirintaada ajirkaadaad leedahay iyada goynteedana dembigeeda iyadaa iska leh dadka allah inoo dembi dhaafo allah inoo wada hanuuniyo su-aasha ugu dambaysa gabadha caadadu ka qarsantay طبعا waxyaabahan dawooyinkan la qaatee ilmaha joojintiisa iyo kala fogeyntiisa iyo waxaas aad bay u sababaan hadday caadadii qasanto gabadhu wakhtigeedii caadada ay ahaan jirtay ay xasuusan tahay teedii ay lahaan jirtay bay raaci wakhtigeedii bay ku qabaysan inta kalena xukunka dhiig furankay siin kunaanadka gabdhaha waxaan wada dhihi lahaa abwaabta caadada iyo axkaamteeda iyo wixii si gaara faahfaahin looga duubay ama gaar ahaan ay ka qabteen gabdhaha culimmada iyo mashaayikhda ah inaad si fiican wax badan dhegaysataan ood akhrisataan baa wanaagsan maadaama arrin mar walba idinku soo noqnoqoto ay tahay baaraka allahu fiikum بارك الله فيك جزاك الله خيرا الشيخ محمود وينوصل دماتي والله قم صلاتي مركا ونسوحرنا إن شاء الله تعالى وحن ربا إن هذا الكلمة السيو الشيخ أحمد الشيخ محمود وسوكو بدون إن شاء الله تعالى دورة iyo hadafkii laga lahaa iyo meelihii soo martay alxamdulilah wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd waxaan u malaynaa waqtiga nooma saamaxaya inaan sii hadalno muhiimadda dowladuna waxay ahayd tawciyadaas iyo inaan duruustaas diiniga isdhaafsanno aan wadaagno allah nagu anfaco wixii khayr ee meesha ka dhacay cid walboo soo xaadirtayna ilaahay waxaan oga baryaynaa inuu miisaankiisa xasanaadka ugu daro waqtiga uu meesha ku bixiyey dowladda waxaa soo abaabulay oo soo diyaariyey markaska California Groups School oo iskaashanayaan macadka laga dhaxfuray markaska oo Daarul Bashaa'ir ah oo diiniga ah oo culumta shariicada lagu barto marka labadaas iska kaashaday kullee manhajka macadka iyo waxyaabahaasna asagoo qoranna waan haynaa waa noo qofka u baahan wixii faahfaahinna looxada halkan taalo iyo ku yaalaan hataa lambarada iyo telefoonada kala soo xiriiri karaa بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الكاسين نوغو حرنت مادام صلاة العاقبة